السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hello, welcome my students. Welcome our students with new lesson related with invitation. Preliminary lesson is still. We are talking about today invitations. maanta waxaan ka hadli doonaa insha Allah invitationska ama casuumada ama martiqaadka waxa loo yaqaano qaabka loo martiqaadayo qof. To begin, si aad u bilowdo an invitation casuumad hadaba use adeegso one of the following expressions. Mid ka mid ah weerahani. To begin, si aad u bilowdo an invitation casuumad use adeegso to begin an invitation. Si aad u bilowdo markaasi casuumad use adeegso one of the following expressions. Mid ka mid ah weerahani soo socda. Are you doing anything tonight? Caawa ma hawl baad haysaa? Are you doing anything tonight? Caawa ma hawlaad qabanaysaa? What are you doing this afternoon? Maxaad qabanaysaa galabnimadan? What are you doing this afternoon? Maxaad qabanaysaa galabta taniya? Are you free tonight? Caawa free ma tahay? Fasax. Are you free tonight? Caawa fasax ma haysataa? Are you doing something tonight? caawa ma hawl baad leedahay? Are you doing something tonight? caawa ma hawl baad qabanaysaa? Are you doing anything tonight? ma wax hawlaad haysaa? Are you doing anything tonight? ma wax hawlaad haysaa? What are you doing this afternoon? maxaad qabanaysaa galabnimadan? Afternoon galab. Are you free tonight? caawa free ma tahay ama fasax ma tahay? Are you free tonight? caawa fasax ma tahay? Are you doing something tonight? caawa ma hawl baad haysaa? Are you doing something tonight? And are you doing anything tonight are the same expressions. waa laba weerood oo isku mid ah markaa. Are you doing anything tonight? ma wax hawlaad haysaa? Are you doing something tonight? ma wax hawlaad haysaa? way possible responses. jawaabaha ku habboon ee aad ka bixin kartaa suurtagalka ay tahay inaad ka bixisid. Possible responses. jawaab celinta suurtagalka ah. I am not sure ma hubo but why laakiin sabab. I am not sure ma hubo but why laakiin sabab. No maya nothing special wax saa gaar ma qabanayo but why laakiin sabab ma. No maya nothing special wax saa ma qabanayo but why laakiin sabab ma. Yes I am free fasax baan ahay but why laakiin sabab ma. I am free but why fasax baan ahay laakiin sabab ma. For example, you are asked waxa lagu weydiiyay are you doing anything tonight? caawa ma hawl baad haysaa? Are you doing anything tonight? caawa ma hawl baad haysaa? You say waxaad oran I am not sure ma hubo but why laakiin sabab ma. But why laakiin sabab ma. waxa lagu weydiiyay what are you doing this afternoon? maxaad qabanaysaa galabnimada taniya? No markaasi nothing shaynaba ayaad ku jawaabi kartaa special. Nothing special wax saas ma qabanaye but why laakiin sabab ma. Or are you doing anything tonight? ma hawl baad haysaa caawa? No maya nothing special may waxa ma hayo but why laakiin sabab ma. Are you free tonight? caawa fasax miyaad tahay? Yes I am free fasax baan ahay but why laakiin sabab ma. But why laakiin sabab ma. Are you doing something tonight? caawa ma hawl baad haysaa? No maya nothing special maya hawl ma hayo but why laakiin sabab ma ayaad weydiinaysaa qofka. These are some possible responses. waa jawaab celin aad ka bixin karto wayahay invitation kana macsuumadaasi lagu weydiiyay lagu bilaabay. Okay, inviting people formally. casuumida dadka formally inaad casuumto si rasmiyaad u casuumto formally. waaya formally waxa ka wadnaa I am going to Langano. waxaan tagayaa magaalada Langano. Would you like miyaad jeceshahay to go with me inaad raacdid? Would you like ma jeceshahay to go with me inaad raacdid? I would like waxaan jeclaan lahaa to invite you inaan kugu marti qaado a dinner party. xafladda cashada. A dinner casho party xaflad. At my house gurigayga. Can you come? ma iman kartaa? Can you come? ma iman kartaa? Okay, I was wondering waxaan aad ula dhici lahaa if you would like haddii aad jeclaan lahayd to go to concert on Sunday inaad markaasi tagto dir raacdid to go to concert on Sunday inaad dir raacdid markaasi xafladda maalinka Axadda. xafladda maalinka Axadda.
would you like to ma jeclaan lahayd would you like to ma jeclaan lahayd wixii aad ku casuumisay halka ku dari would you like to go with me for dinner cashada inaad ii raacdid ma jeceshahay would you like to go with me a picnic inaad tamashle ila baxdid ma jeceshahay also saasoo kale ayaad wadi like so way could you mind having a cafe with me could you mind maxaad ka qabtaa having a cafe with me inaad ila qaadatid bun this evening feedka taniya may I invite you ma kugu casuumi karaa may I invite you ma ku casuumi karaa way waxaad ku casuumisay halka ku dari doonta may I invite you ma kugu casuumi karaa waxaad oranaysaa inviting people casuumida dadka formally markaad u casuumayso si formally waaye and I am going to Langano waxaan tagayaa Langano would you like me to go with me inaad ii raacdid I would like waxaan jeclaan lahaa to invite you inaan kugu casuumo a dinner party xafladda cashada at my house gurigayga can you come ma iman kartaa I was wondering waxaan aad ula dhici lahaa if you would like haddii aad jeceshahay to go to concert inaad xafladda tagtid on Sunday maalinka axadda inaad ii raacdid would you like to ma jeceshahay would you like to ma jeceshahay could you mind having a cafe with me this evening maxaad ka qabtaa inaad ila gunaysid fiidka kaniya may I invite you ma ku casuumi karaa may I invite you ma ku casuumi karaa or may I invite you ma ku marti qaada way waxaad ku marti qaadaysaa halka gelin doontaa isagana this is inviting people formally waa dadku aad u casuumayso si rasmi ah aad u casuumayso okay and accepting the invitation is inaad aqbashid markaas invitationska oh Allah yes I would love to waan jeclaan lahaa oh Allah yes ha I would love to waan jeclaan lahaa oh Allah yes I would like to waan jeclaan lahaa I would like to waan jeclaan lahaa these two statements are the same oh Allah yes that sound is so nice hawshaas aad bay u fiican tahay that sound is so nice arrintaas aad bay wanaagsan tahay oh Allah yes that sound is like a nice idea taasi waxay u muuqataa that sound is like taasi waxay u muuqataa a nice idea aragti wanaagsan aragti aad u wanaagsan like a nice idea thank you mahadsanid I would like it very much aad baan u jeclaan lahaa I would like it very much aad baan u jeclaan lahaa thank you mahadsanid I would like it very much aad baan u jeclaan lahaa that sound is very interesting indeed that sound is very interesting arrintaas aad bay ku xiiso gelinaysaa ama u xiiso badan tahay indeed dhab ahaantii thank you mahadsanid that sound is very interesting taasi waa mid xiiso badan indeed xaqiiqdii thank you mahadsanid thank you mahadsanid I would be glad to aad baan ugu riyaaqi lahaa I would be glad to aad baan ugu farxi lahaa that would be very nice aad bay wanaagsan tahay that would be taasi very nice aad bay wanaagsan tahay thank you mahadsanid oh Allah that would be very fine waa arrin aad u wanaagsan that taasi would be very fine aad bay u fiican tahay ayaad ku jawaabtaa this is the accepting invitations markaad aqbalaysid invitationska you will use these expressions waxaad adeegsani weerahani ayaad adeegsan oh Allah yes I would love to waan jeclaan lahaa oh Allah yes I would like to waan jeclaan lahaa oh Allah yes that sound is so nice arrintaasi aad bay wanaagsan tahay that sound is so nice oh Allah yes that sound is like a nice idea waxay u muuqataa like a nice idea that sound is taasi waxay u muuqataa like a nice idea aragti wanaagsan thank you mahadsanid I would like it very much aad baan u jeclaan lahaa that sound is very interesting indeed xaqiiqdii dhama dhab ahaantii aad bay ku xiiso gelinaysaa taasi thank you mahadsanid thank you waad mahadsan tahay I would be glad aad baan ugu farxi lahaa that would be very nice aad bay wanaagsanaan lahayd thank you mahadsanid oh Allah that would be very fine taasi aad bay u fiican tahay that would be very fine aad bay u fiicnaan lahayd these are some expressions you can use for accepting the invitations. This is the end of our lesson of today. Thank you very much, my students. See you again. Goodbye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hello, welcome students. Welcome our students with new lesson related with invitation. Preliminary lesson is still. We are talking about today invitations. maanta waxaan ka hadli doonaa insha Allah invitationska ama casuumada ama martiqaadka waxa loo yaqaano qaabka loo martiqaadayo qof. To begin, si aad u bilowdo an invitation casuumad hadaba use adeegso one of the following expressions mid ka mid ah weerahani. To begin, si aad u bilowdo an invitation casuumad use adeegso to begin an invitation. si aad u bilowdo markaasi casuumad use adeegso one of the following expressions mid ka mid ah weerahani soo socda. Are you doing anything tonight? Caawa ma hawl baad haysaa? Are you doing anything tonight? Caawa ma hawlaad qabanaysaa? What are you doing this afternoon? Maxaad qabanaysaa galabnimadan? What are you doing this afternoon? Maxaad qabanaysaa galabta taniya? Are you free tonight? Caawa free ma tahay? Fasax. Are you free tonight? Caawa fasax ma haysataa? Are you doing something tonight? caawa ma hawl baad leedahay? Are you doing something tonight? caawa ma hawl baad qabanaysaa? Are you doing anything tonight? ma wax hawlaad haysaa? Are you doing anything tonight? ma wax hawlaad haysaa? What are you doing this afternoon? maxaad qabanaysaa galabnimadan? Afternoon galab. Are you free tonight? caawa free ma tahay ama fasax ma tahay? Are you free tonight? caawa fasax ma tahay? Are you doing something tonight? caawa ma hawl baad haysaa? Are you doing something tonight? And are you doing anything tonight are the same expressions. waa laba weerood oo isku mid ah markaa. Are you doing anything tonight? ma wax hawlaad haysaa? Are you doing something tonight? ma wax hawlaad haysaa? way possible responses jawaabaha ku habboon ee aad ka bixin kartaa suurtagalka ay tahay inaad ka bixisid. Possible responses jawaab celinta suurtagalka ah. I am not sure ma hubo but why laakiin sabab. I am not sure ma hubo but why laakiin sabab. No maya nothing special wax saa u gaara ma qabanayo but why laakiin sabab ma. No maya nothing special wax saas ma qabanayo but why laakiin sabab ma. Yes I am free fasax baan ahay but why laakiin sabab ma. I am free but why fasax baan ahay laakiin sabab ma. For example, you are asked waxa lagu weydiiyay are you doing anything tonight? caawa ma hawl baad haysaa? Are you doing anything tonight? caawa ma hawl baad haysaa? You say waxaad oran I am not sure ma hubo but why laakiin sabab ma. But why laakiin sabab ma. waxa lagu weydiiyay what are you doing this afternoon? maxaad qabanaysaa galabnimada taniya? No markaasi nothing shaynaba ayaad ku jawaabi kartaa special. Nothing special wax saas ma qabanaye but why laakiin sabab ma. Or are you doing anything tonight? ma hawl baad haysaa caawa? No maya nothing special may waxa ma hayo but why laakiin sabab ma. Are you free tonight? caawa fasax miyaa tahay? Yes I am free fasax baanahay but why laakiin sabab ma. But why laakiin sabab ma. Are you doing something tonight? caawa ma hawl baad haysaa? No maya nothing special maya hawla ma hayo but why laakiin sabab ma ayaad weydiinaysaa qofka. These are some possible responses waa jawaab celin aad ka bixin karto waayahay invitation kana macsuumadaasi lagu weydiiyay lagu bilaabay. Okay, inviting people formally casuumida dadka formally inaad casuumto si rasmiyaad u casuumto formally. waaya formally maxaa ka wadnaa? I am going to Langano waxaan tagayaa magaalada Langano. Would you like miyaad jeceshahay to go with me inaad raacdid? Would you like ma jeceshahay to go with me inaad raacdid? I would like waxaan jeclaan lahaa to invite you inaan kugu marti qaado a dinner party xafladda cashada. A dinner casho party xaflad at my house gurigayga. Can you come ma iman kartaa? Can you come ma iman kartaa? Okay, I was wondering waxaan aad ula dhici lahaa if you would like haddii aad jeclaan lahayd to go to concert on Sunday inaad markaasi tagto dir raacdid to go to concert on Sunday inaad dir raacdid markaasi xafladda maalinka Axadda. xafladda maalinka Axadda.
would you like to ma jeclaan lahayd would you like to ma jeclaan lahayd wixii aad ku casuumisay halkaa ku dari would you like to go with me for dinner cashada inaad ii raacdid ma jeceshahay would you like to go with me a picnic inaad tamashle ila baxdid ma jeceshahay also saasoo kale ayaad u wadi like so way could you mind having a cafe with me could you mind maxaad ka qabtaa having a cafe with me inaad ila qaadatid bun this evening feedka taniya may I invite you ma kugu casuumi karaa may I invite you ma ku casuumi karaa waya waxaad ku casuumaysaa halkaa ku dari doonta may I invite you ma kugu casuumi karaa waxaad oranaysaa inviting people casuumida dadka formally markaad u casuumayso si formally waya and I'm going to Langano waxaan tagayaa Langano would you like me to go with me inaad i raacdid I would like waxaan jeclaan lahaa to invite you inaan kugu casuumo a dinner party xafladda cashada at my house gurigayga can you come ma iman kartaa I was wondering waxaan aad ula dhici lahaa if you would like haddii aad jeceshahay to go to concert inaad xafladda tagtid on Sunday maalinka axadda inaad i raacdid would you like to ma jeceshahay would you like to ma jeceshahay could you mind having a cafe with me this evening maxaad ka qabtaa inaad ila bunaysid fiidka kaniya may I invite you ma ku casuumi karaa may I invite you ma ku casuumi karaa or may I invite you ma ku marti qaada way waxaad ku marti qaadaysaa ayaad halkaa gelin doontaa isagana this is inviting people formally waa dadku aad u casuumayso si rasmi ah aad u casuumayso okay and accepting the invitation is inaad aqbashid markaas invitationska oh Allah yes I would love to waan jeclaan lahaa oh Allah yes ha I would love to waan jeclaan lahaa oh Allah yes I would like to waan jeclaan lahaa I would like to waan jeclaan lahaa these two statements are the same oh Allah yes that sound is so nice hawshaas aad bay u fiican tahay that sound is so nice arrintaas aad bay wanaagsan tahay oh Allah yes that sound is like a nice idea taasi waxay u muuqataa that sound is like taasi waxay u muuqataa nice idea aragti wanaagsan aragti aad u wanaagsan like a nice idea thank you mahadsanid I would like it very much aad baan u jeclaan lahaa I would like it very much aad baan u jeclaan lahaa thank you mahadsanid I would like it very much aad baan u jeclaan lahaa that sound is very interesting indeed that sound is very interesting arrintaas aad bay ku xiiso gelinaysaa ama u xiiso badan tahay indeed dhab ahaantii thank you mahadsanid that sound is very interesting taasi waa mid xiiso badan indeed xaqiiqdii thank you mahadsanid thank you mahadsanid I would be glad to aad baan ugu riyaaqi lahaa I would be glad to aad baan ugu farxi lahaa that would be very nice aad bay wanaagsan tahay that would be taasi very nice aad bay wanaagsan tahay thank you mahadsanid oh Allah that would be very fine waa arrin aad u wanaagsan that taasi would be very fine aad bay u fiican tahay ayaad ku jawaabtaa this is the accepting invitations markaad aqbalaysid invitationska you will use these expressions waxaad adeegsani weerahani ayaad adeegsan oh Allah yes I would love to waan jeclaan lahaa oh Allah yes I would like to waan jeclaan lahaa oh Allah yes that sound is so nice arrintaasi aad bay wanaagsan tahay that sound is so nice oh Allah yes that sound is like a nice idea waxay u muuqataa like a nice idea that sound is taasi waxay u muuqataa like a nice idea aragti wanaagsan thank you mahadsanid I would like it very much aad baan u jeclaan lahaa that sound is very interesting indeed xaqiiqdii ama dhab ahaantii aad bay ku xiiso gelinaysaa taasi thank you mahadsanid thank you waad mahadsan tahay I would be glad aad baan ugu farxi lahaa that would be very nice aad bay wanaagsanaan lahayd thank you mahadsanid oh Allah that will be very fine taasi aad bay u fiican tahay that would be very fine aad bay u fiicnaan lahayd these are some expressions you can use for accepting the invitation is this is the end of our lesson of today thank you very much my students see you again goodbye